aniga marka koowaad xildhibaan Zamzam baa la yiraahdaa laakiin gobsan ciyaarka xaafadda ay taqaana waxay tiri gobsan maxaad kula baxday hadda technology baa dadkii waalay beriga wax baranayay wax la yiraahdo Facebook I think 2009 2008 2007 something haddaana qaldayn waqtigaas uu jiray marka waqtigan Facebook aan sameystay waxa ceeb noo ahayd qofku wax baranaya hebel meediyahu galaa ama hebel internetku galaa baa ceeb ahayd that's why aan gobsan la baxay markaan koonfur imiday ama markaan muqdisho ibtayna magacaygii baa hodan noqdo oo igu dheereeyay magacii hooyo aabana saasa ay gadaal iga noqday maama waa ku joogo markii ugu horeysay si publican magacayga gobsan aan u qeexo inta marka laga imaado hooyo qiimo badan anu waxaan ahaa ina yaro agoonnimo ku soo kortay hooyo ay soo korisay wax soo bartay maanta halka aan taaganahay iyo aqoontayda iyo kartideedana waxa iga dambeysay waa hooyo sidaa daraadeed caawa hooyadii maadaama halka goobjoog ka ahayn hooyo caashaan rabaa in yaro maasa ay u tiriyay hadraawi maasidii markaad soo eegtar way iga liqay anagii hirasha isweynay higsiga nolosha adkaaday adduuniya haybsigiisa hangooliida ku daayay waxaase ku hagaagi waayay dhankaad ku hagaagsanayday qofkuugu haweydantiisa cidaad ku halaysay mooy waa maasadii hadraawi iyo hooyo macaan oon ku jecelnahay maadaama caawa hooyooyinka dhanaad mataliso thank you hooyo qalbiye malaa'igtaa ku jecelahay inta marka laga imaado oo nin odaya waxaa jiray wadaad ah oo caawa gabiyay oo run waqooyiga waa hibo ilaahay siiyay inay gabiyaan laakiin waxaa leeyahay horta marka koowaad mahadsan tahay anigu reer Gabile ma hinaag reer Hargeysa ahay laakiin dad Gabile u sheegtay kama fogey aad baad u mahadsan tahay waa saxay soo mar dambe u saxayna naag reer Hargeysa ahay inta marka laga imaado inta badan marka Soomaaliya laga imaado banaanka qurbaha la imaado horta nimayaho anigu Hargeysa ka imiday dadkii ku dhashay baana wixii 91 wixii ka dambeeyay Hargeysa ku dhashaana waa dareemi kartaa afkaartu aaminsan yahay markaad kitaab ugu dhaaratana midnimada Soomaaliyeed iyo baarlamaankii Soomaaliya umada u sinaydna waxa weeyadana waa qodob kale oo halkaas taagan anigu markaan Soomaaliya ka soo baxo xaydaabka inta badan oo waxa nin oday oo ka soo istaagay maalin baan sheegaynay gobsan baa waxa ka xusuustaa waxaan ka imid anigoo daalan baarlamaanka Baan Afrika oo member aan ka ahay dabadeed markaas saasaan anagu ninkaas odayga aan isku aragnay marka waxa inta badan marka aan baxo aan banaanka aado waxa la yiraahdaa waxaan jeclaadaa Soomaalinimada qof kasto ku imaanaya kuma imaanayo ilma darbaan nahay iyo waxbaan isku nahay magacaaga markuu maqlo albaabka ka soo boodaya marka anigu hadda iyo qurbaha jacaylkii Soomaalinimo ay ugu sii badanaya intii Muqdisho aan ka ogaa qurba joogta inta badan aad waxa u jeceshahay in wadankii looga sheekeeyo waxaan rabaa in yar si guud inaan idinku dulmaro xaaladda wadankii horta annaga marka waxa horta marka koowaad alxamdulillah ku faraxsan ilaahay ugu mahadinaya markaan xildhibaanka soo noqonayay intaana gelin dadkii lahaa gobsan waa yarta horta wadi jaam gareenaysaane niyo meesha waa xawee cod dheer baan ku gaarsiiyay hadalkayga maalintaan xildhibaanka noqonayay challenge adag baa igu imaaday 2 challenge waa haystay 3 mar waxa lahaa waa inaan yaro kursiga markay qaadato dhalinyaro ay noqonaysaa marna waxa lahaa waa dumar oo meel ka dhacaysa lama yaqaan kursigaas meel kale waadaya marna waxa lahaa waa kursi qof weyn oo gobsan waajibaadkiisa ma ka soo bixi doonta laakiin alxamdulillah waajibaadkii kursigana waa ka soo baxay dawladnimadii markaan xildhibaanka soo noqday intii backgroundkayga taqaanay ana waxa soo dhistay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qofkii ugu horeeyay ee intaan caqliyeystay ee maankaygu jiray aan codkayga si ilaahayna qiyaamaha ay weydiinayo waxa aan qofkaas ku doortay waxyaabihii aan ku doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna maanta waxa alxamdulillah in ay taaba gashay oo ahayd Soomaaliya hadda muddo 30 sano burbur iyo dhibaato iyo dagaalo iyo waxyaabo xaalad kasta noqoto ay ku habsatay jirtay wixii ugu horeeyay isaga oo institutionkiisa markuu soo dhisay golihiisa wasiirada wuxuu ku dhawaaqay
in shabaab lala diriro oo ummadda muslimiinta ee maalin kasta ku haraataysa ee hooyo ku hagardaamayso uu aabba ku ilmo beelaayo oo caruur rajo iyo agoon ku noqonayso in maanta laga xoreeyo. sidiisa banaanba dowladnimadu way ballaaran tahay, dabaqada badan baa laga eega. dowladnimadii maalintaas aan daba qaadnay annaga iyo baarlamankuba waxaan go-aan naga ah horta Soomaaliya inay noqoto meel nabad ah oo qofku marka uu soo tooso bal ka war hadda adiga Sweden caawa waxaad dhex maraysaan ama dalku doonaba ha noqdo adoo nabada inaad caawa 4 habeenimo gurigaagii hooyanayso. annaguna markaa soo baxayno waxaan xidhanaa waanu xijaabana oo waxaan niraanaa inaad soo noqonayso in kale ilaahay baa og. runtii in taas laga dadaalo oo aanu ka midowno oo aan la dagaalano shabaab wixii cudud iyo xoog aanu hayno inaan kula dagaalanaana waa wax aan go-aan ay naga wada go-an tahay. dowladnimadu waa qori isku dhiib maaha dhaxal. shalay toban maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa imiday waxbuu ka tegey, maantana madaxweyne xasan sheekh baa joogay, isna berri wuxuu ka tegey iyo wuxuu qaldayba waxa sixi doono qofku ku xiga. inaaste qof ma imaanayo oo aniga banaanka igama imaanayo waxa imaanaya shakhsi Soomaaliyeed oo sii wadaya qoriga loo dhiibay. qabyana ninkeeda tira insha Allah billahi karim xasan sheekh waa ka sugaynaa qabyana ninkeeda tira. sidoo kalena waxaanu taaba qaadnay musuqayna la dagaalano hadda xildhibaanada arkay waa wax jira waxa aad sheegayso dhan, laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa Soomaali inta ka fiyooda adigu dimuqraadiyad baad wada shacaaw oo waa dowladnimada joogto, laakiin Soomaaliya dimuqraadiyadeedii waan la soo dabaaldegaynaa waan soo wadnaa. marka ha u arkin Soomaaliya waa meel 30 sano burbursanayd, meel maaha meesha aad joogto oo wax aad rabto oran karto waxaad rabtana aad marsan karto waa meel loo samro. dowladnimada Soomaaliya waxay u baahan tahay maanta waa halkii waxaanu taaganahay ugu dambeysay, waa samreynaa iyada oon cidna la musuqin iyadoo cidna la dhibaataynin way imaanaysaa. sareynta sharciga aadamaha sidiisa banaanba waxa uu u baahan yahay xornimadiisu, laakiin waxay ku saleysan dad islaam ah baan nahay oo dhaqan iyo diin leh. diinta iyo islaamka iyo dhaqankuba inay nagu saleysanaadaan oo xintaab inoo noqdaan waa waxaan u joogno. marka waxaan ku leeyahay mudan xildhibaan haddii aad aragto annagu dadka dumarka ma liidno doorashada aad sheegaysa aad adiga laftarkaaga hadalkaaga waxaa rabaa xildhibaan inaan ku shaafiyo maadaama aan maanta dowladdii Soomaaliya ka socday adiguna aad tahay shakhsi dimuqraadi ah. dumarka ma liidno raguna ma liidaan. haddaan waxbarashadii bilownay, haddaanu bilownay inaan wax noqon karno, haddaanu bilownay ahdaaf inaan ka midho dhigan karno. waad dareemaysaa qof gabadhi markay hadlayso iyo markuu qofku nin rag uu hadlayo hadalka saameyntiisa waa la kala yaqaanaa. marka taa laftarkeedna inaanu kasoo gudubnay midnimada ummadda Soomaaliyeed oo iyaduna aanu taabadeeda ku jirno way jirtaa meelo oo dagaalada ay ka socdaan oo isafgaran waaye iyo ummadii muslimiinta ay isu dhibaataysan yihiin, laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyadoo la siyaasadan iyadoo la qabyaaladin dugsi ma la qabyaalad waxay dumiso mooyaane ilaahay idinku waxaan ka rajaynaynaa iyadana laftarkeedana in ilaahay qalbigooda barcad isku mariyo idinkuna aad u ducaysaan. sidoo kale waxa aan ka gudbi doonaa doorashadii hebelow waa odayga iigu tago iga sasab iyo lacagsi iyo aniga hadda kursiga ku taagana 120,000 doolar baa laygu miisaamay, laakiin iyadoo 121 doolar midna bixin baan xoog soo qaatay. waa doorasho dadban. marka doorashada dadban inaan ka gudubno ilaahay subxaanahu wa ta'aala warajeenina haddii 4 sano noo suurowdo hadday noo suurowdana waa saa horeydu ku sheegay waxaa imaan doonaa qofka qorigiisa inta loo dhiibo Soomaaliya cagaheeda ku taagaya. dalkiina waa dad curdina inaynu u samirno ayaa loo baahan yahay. idinka waxaan idinku dardargelinayaa markaa dardaarankayga anu nagri waqooyiga baan ahay waan hadal badanahay waxa laga yaabaa dadka qaarkoodna inay fahmin, laakiin waxaad inta badan rajeynayaan inaad fahantaan oo hadalku nuxurkiisa dadku banaadamkuna dee Soomaaliya Soomaaliyeed baa heed arooska lagumana raago waxa ka xumahay intii waqtigu leedka uu u dhacayna waraali gelinay. waxaan kula dardaarmaya qurbo joogta Muqdisho marka aad joogto ama dabaq sare aad ka korto horta Muqdisho waa nolol kale haddaad aragto dadkaas maalin kasta la dhibaataynayo qof madaxa laga jibinayo la dilaayo qarax ku dhacayo waxyaabo kale nolol kale ay waxay doontaba noqotay ay ku dhacayso. markaad xamar saa u dul istagdaaraha ka dhisan iyo nolosha lagu nool yahay iyo dhalinyaradu say u niyadsan tahay cibaarad horta qaadanaysaa taad miinis waxay tahay inaanan ka niyad jabin xamar inay cagaheeda ku istaagto. anigu naag reer Hargeysa oo nabad ku soo kortay
nabad lagu barbaariyey laakiin miinis saaka anigu xamar meelaan ka jecel ma jirto si kale uma jeceliyo waxay tahay meeshii macna aan ku yeeshay inaan meeshii macna aan ku yeeshayna inay nabad noqoto oo lagu soo hirto dawladnimadeedu taaba gashana waa waxa kitaabka ugu dhaartay idinka waxaan markaa idinka codsanayaa waa ogahay qaar qalkan ka badan oo aad fadhidaan oo daara aad maanta ku leedihiin muqdisho horta qolada qurba hebel markaa ku tara war xamar maxaad iima weydi bismillah waa la dilayaa meesha dhibaatadu ka jirto oo waxa la oranayaa war xamar anaga nool haddaad dhimato qaraxad ku dhimatana way kuu qornayd oo mawdkaagu kuma daynayo xamar inaad timaado oo dadkaaga aad tustaa nin kastaba dadkiisa wax ka dhiga halkan inaad aan soo istaagno oo xamar ha laga warramo iyo sidee tahay hal ilaado waxa ka qiimo badan dadkaaga iyo noloshooda dhabta ay ku nool yihiin inaad soo aragto awalba waad dhimanaysaa mawalba lagu balaqaado geeridu waa wax qoran qof kasta uu dhimanaya niyadaada ka saar xamar baad ku dhimanaysaa Sweden baad ku dhimanaysaa Norway niyadaada ka saar waad dhimanaysaa maalin baa ku imaanaysa aan cid waxba ka weydiinin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inagu wada xukumay marka xamar iyo Soomaaliyaba waxa weyn inaad timaadaan oo laydi arko oo bal aad warsataan dadkii dawladnimada soo nooleynaya dadkii shuruucda wadanka ka shaqeynata la fadhiisata la xisaabta waraade anaga dalkii dib baan ugu soo noqonay sidoo uu wada alla xaq baad u leedahay muwaadin Soomaaliyeed baa tahay laakiin intaan halkan iska dhigayno maxaa xamar ka jira iyo maxaynu xamar uga baahanahay wallahi billahi talaa qof jira matihid waxaad wax ku tahay waa dalkaaga macna ugu yeelata marka anigu waxaan idinkula dardaarmayaa dalkiin inaad macna ku yeelataan dhalinyaro waxa jirta hadda mar dhowto la ii sheegay oo wax bartay aqoon leh waa ogahay meesha wax barashaa taala adiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta dhimato kuma weydiinay maxaad wax baratay waxa lagu weydiinayaa amalkaaga aqoontan adduunka waxa ugu qiimo badan waxa weeyaan aqoonta kugu jirta inaad celiso dhalinyaradin halkan joogto wax baratay ilaa soo waxa ugu sareeya PhD holder inaad noqoto ma haddaad tiraado qurban ku noolaanaya oo dadkii adiga naftaada iyo magacaaga iyo Soomaalinimadaada iyo midabkaagaba aad ka sinaydeen inaad u tagi weydo misana aanad ka qayb qaadan weydo waxaad baratay waa ayaan dar oo idinku celinayaa maadaama aad tihiin kulay qolada si wallahi yaa way ku celinaya waxa idin leeyahay hal lagu noqdo aqoontiina ku noqda waxaad baratay waxa ugu qiimo badan dadkaaga ku celiso dalkaaga kaalay qiimo ku yeelo war muqdisho sawirkaad ka aaminsantihiin aniga caawa waxaan ka jecelahay wallahi cadin wad iga dhaarisay inaan xamar joogo hadda waxaan maleynaa tuugisman joogo waxay ka darantaba 2 years inaan joogo aniga oo sheegay qolada tukala asxaabteedu aniga Yurub oo soo soco aniga waxa mararka means maaha inaan idinka gadaayo laakiin waxa macnaheedu tahay xamar waa meesha at the last time ad imaanayso markaad xil doonayso wad imaanayso waxa leedahay nin qurba jooga caynka ay aqoonti ilaha waxa la siiyo waay marka hore nuugi mooyada marka rafaadka qaybina dhagaxaanta tuurina xagad ku maqnay kaalay dalkaaga oo wax u qabo 4.5 iyo qabyaaladii in lagu raagtay horta qabyaalada waa ka bixi doona anigoo ilo hebel ay waan idaarkay qaar badan oo ilaa xildhibaanada ugu horeyso qabyaalada ay ka sheekeynaysid qabyaalada horta waxaan bartay aniga hadda maanta kursiga qaadanaya reerkayga soo dhex galay intii kale oo koonfur bay isaga jiray macnihii sidaas bana markaad meel timaado waa in environment ku saameeya anigu de family hadii aan rabo iyo reer inaan rabo de hooyadii iyo tabanka dhashay anag fadhii lahaay oo marna inaad rabno walaalkooda leh marka waxa idin leeyahay 4.5 waa wax nasaleey wali waan isku ducaydeen hadda nidii sheegan ku kaftana oray adigoo in hebel ama su'aalaysa ma aha anagu waa keenay waa wax dawladnimadeedu ku dhisan tahay 4.5 war adiga ma aha ada hadli kara maada mikrofoonka iga xiri kara Soomaaliya qof balka soo istaagi baana garanayni masuula oo waxa isku jawaabi gudoomiye Cabdirashiid buu oo laha maxay xildhibaanka iyo gudoomiyihiisa ku jawaabayaan waa waxaan taabagelin oo saxayn hadaan gudoonka aan loo jawaabin oo la saxin anaga ma naqaano gooraas saxi doono laakiin waxa qalad hayd in media intaasi timaado taasa qalad hayd just apologize oo qofka labaad igu dhaxweydiisay wada maxay arintaas u dhacday apologize ma ka bixinaya baarlamaanku waxa weeyaan waa iftiinkii ummadda Soomaaliyeed waa dawladnimadii aniga hadalku waa idinku raajiyay waana idila dardaarmay hadal qof weyn baan idinku la hadlay hadal naag weyn oo xildhibaan gubsa la dhahday idinku la hadlay waxa weeyaan dalkaan isugu imaanay insha Allah billahi karim malaa'iktu haydi sharafto malaa'iktu haydi jeclaato waduunka dunideeda ku noolaada xariirtii
الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام قو إشال كابان دي ساري حرمك قيمة بدن ما جرتو إن قو إشال كان النبي محمد لو ما موسى waxay noo malaba hadin dunida joognana Muqdisho haday dhimanana jannada ku eeb ku kulmaan lahayd ka dhigo hadii hadal qalda afiga baxayna waxaan bixinayaa mar labaad mar saddexaad apologize aad baa mahadsantiin